ما أنت وادنوشة مسلمنا إلهي وكادي الدنيا دي نواج شبتها منا آذان لمن waxaad ku jirto waxaad aaminsan tahay waxaad ka shaqaynayso waad isogtahay haddii waxaas ay yihiin waxaad ku badbaadaysana alxamdulillah bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم اللهم صل على محمد إن شاء الله تعالى عوضي الله يدمو وحين اسكو ديدونا إنينو لما يسترنو موضوعي أين سوودني كساب سنة الشفاعة والصراط والجنة والنار صراطكي هي شفاعتي هي جنتي هي نارتي وحيابها دارت آخرة ووحي نقهر هي وآخرة إلهي دياريي وقفك مسلم كائنه همية لغا مرمانته وحيابها أركانت إيمانك لحدة وحال قدري الإيمان باليوم الآخر محل الله قدري الإيمان باليوم الآخر وحال الله قدري قفك إنان إسلاوين وغفلت إيموغنان آني كدعين ماشا الله مهورانك يأو كسعده آخر الله يراهده قفك إنان هالمامين ووحكالي وأن دنبضني إيوشرين إنو كهب سامين وحين تشوغني مركا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أيين كل حجرني والنبي صلوات الله والسلام عليه وددك وشفاعة قاده وحين ودن بيي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة قاده ضدك أهل الجنة إن الله إدمه والله فصحه جنة إنه كلام وحكو حكت النبي عليه الصلاة والسلام إنه شفاعة قاده دونه ضد مسلمين تكمل لكن كل عيد دنبيا واوين وكبائر كل عيد ضد كدنبيا واوين كبائر تا كل عيد ومدي سكمدا ومطيستين نار تيني قلال ونار تي مركا قلي إنه إلهي ويديه سبحانه وتعالى إنه نار تكسو صاره وحوغا مركي لقبي ونار تي لقو حنوشيي oo dambiyadii ay galeen laga jaray ilaahay marka uu weydiinaya maadaama ay muuminiin ahaayeen ilaahay inuu naarta ka soo saaro subhanahu wa ta'ala shafaacada caynkaasi waa shafaaca caam ah oo nabiga kaleey salaatu wasalaam waa shafaaca qaadi doona malaa'ikta saasoo kale oo iyaguna waa shafaaca qaadi doonaan nabiyada kala shafaaca qaadi doona muuminiintuna waa shafaaca qaadaya حديث كإمام مسلم إمام البخاري وصحيح سكسو صاري لحكم شنبق القنطنية لح من حديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم وحكورنا يا نبي يري يخرج قوم من النار ضد النار تكسو بحدونه بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد شفاعة عيسى وشفاعة قادي دونه سببت بين نار تكسو بحدونه فيدخلون الجنة جنة قليا يسمون ذاتك وحا لغو مقعابا وأهل جنه ويقانان الجهنميين ذاتك غير جهنم قرقي جهنم هذاتي كيين مكا قيبت هوسة جنة دقين غير جهنم لا يدهد ذاتك جهنم صومري لا وين واحد كهين قبل باديو
kuwaana ilaahay naguma daro subxaanahu wa tacaala jahannamo soo maree janno ku dambeeye alla inaguma daro. abu daawuud oo kale xadiid uu sanad saxiixa ku warinayo anas ibnu malik radi allahu tacaala canhu nebigu uu leeyahy calayh isalaatu wasalaam shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay dadku u shafeeco qaadayo nebigu sheegaya sal alla alayh wasalam dadka dembiyada waaweyn ay ka dhaceen ee muslimiinta ah ee ummaddayda ka mida shafaacadayda qayb bay ku leeyihiin uu nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam waxaa wax weyna qofku inaanu iimaanka waayin mar hadduu iimaankii iyo islaamnimadii ku sugan yahay shafaacada waa mutaysanaya. shafaacadu ma sugnaanayso qofna in loo shafeeco qaado ilaa laba shardi la hela mooyaane. shardiga koowaad an ya'dana allahu caza wajal lishaafici an yashfac cidda shafaaco qaadaysa ilaahay inuu u fasaxo waa qodobka koowaad. waynu soo marnay aayaadkii ku yimid fii suurati albaqara aayadda 255 man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih aayatulkursida dhexdeedii. fii suurati saba walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu shafaaco alla agtiisa wax anfacaysa ma jirto cidduu isagu u fasaxa mooyaane. marka idinkaa waa in la helaa oo qof iskii iska shafaaco qaadaya iyo aniga sheekhayga ii shafaaco qaadaya iyo waxaa doontaan sameeya anaa idin shafaaco qaadaya sheekadaasi war saxa ma aha. cidda shafaaco qaadaysa qudheeda idan u baahan iyo fasax in la siiyo oo ilaahay siiya subxaanahu wa tacaala. shardiga labaadna waxa weeye an yarda allahu caza wajalla can ilmashfuuci lahu an yushfaca fiih inuu ilaahay raalli ka yahay kan loo shafeeco qaadayo in loo shafeeco qaado. ilaahay markuu raalli ka yahay ayaa kana loo idmayaa kanuu raalli ka yahay in loo shafeecana waa loo shafeeco qaaday. fii suurati alanbiyaa aayadda 28 walaa yashfacuuna ila liman irtadaa uma shafaaco qaadaan cidduu ilaahay raalli ka yahay mooyaane. fii suurati najmi wakam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa. imisaa ku sugan malaa'ig samada joogta oo haddana aan shafaacadooda waxba taraynin ilaahay markuu u idmo kadib mooyaane ciddii isagu u doono raalli ka yahay. shafaacada marka cidda mudanaysa ee ugu muhiimsanayd waa dadka ahlu tawxiidka ah baa iska leh. gaaladu shaqo kuma leh, kufaartu shaqo kuma laha, ilaahayna raalli kama aha mana fasaxayo in loo shafaaco qaado. ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati almudathir aayadda 48 famaa tanfacuhum waxba tari mayso oo anfici mayso shafaacatu shaaficiin kuwa shafaaco qaadaya shafaacadooda waa gaalada. hal nin baa laga soo reebaa, hal nin oo gaala ayaa jira cid loo shafaaco qaadayo oo shafaacadu wax tarayso. ninkaasi waa kuma waa nebiga adeerkii abu daalib oo gaalnimo ku dhintay. isagana waxaa ilaahay sidaa uga dhigay ergada nebigu ka ergeynayo calayhi salaatu wasalaam maadaamuu diinta u hiiliyey isagoo gaala oo isbarbar taagay ayaa saa looga dhigay. xadiiska bukhaari iyo muslim nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayaa cidda shafaacadan iska leh. wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska abu hurayra ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaama shafaacadayda cidda ugu liibaan badan ee ku liibaanaysa ee ugu nasiibka badan maalinta qiyaame ay helaysa man qaala laa ilaaha ila allah waa qofkii yidhi laa ilaaha ila allah oo islaamnimadaas ka run sheegay khaalisan min qalbihi iyadoo qalbigiisu ay daacad ka tahay oo aan shaki kaga jirin tawxiidka oo diintu shaki kaga jirin sidaa ku ashahaatay muslimnimadaa ku dhashay wax ku dhalay ku gaboobay ku ciraystay ku geeriyooday cidda ugu nasiibka badan shafaacadaydu waa ciddaas. marka cidda ahlu tawxiidka ahi kuma koobna keliya ciddii rasuulka la joogtay saxaabada ahayd ilaa qiyaami saaca wixii muslima yimaadaba wey rag iyo dumar wixii muslima innaga kuwii inaga horreeyey kuwa inaga dambeeya muslim kasta oo yimaada shafaacada nasiib ma helaya. halkaas waxaad ka fahmaysaa ilaahay inuu qof muslima kaa dhigo
فائدة إلهي وقف بني آدم إلهي أدونك أوصي وكقالسا إسلام نمالي إيمانك مجرد إلهي وحك السيو كقالسا إسلام نمالي إيمان مجرد سيدا أوغين وحمرك إني لقدبون هذا أنت شفاعة وركي إذا كسو قابيبا إني آد وقد دالو إن شفاعة سينو آخرة أهل لهم نبي الشفاعة سأهل لهم عليه الصلاة والسلام دال كذا الله نماضي نبي يقول عليه الصلاة والسلام مركا لا أدينه قفك أدينك أنتو أتشيبه دعاء كدن بيسا كد عيسى اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيع العالي في يعني دعاء كد عيسى حلت له شفاعتي يوم القيامة شفاعة إذا مضنا يا حلال بقول نقول هو عيسى ما ننتقي قيامه دعاء أن يقفك إن إلاون ومهم هل كهذا شفاعة كجب جبينه سراتك أيين أجد بينها ولا الله يا سراتك وحواجب كل بين وما إنه وضد الله مرة يا سراتك ما أنت قيامه وبندق يا بريش يا وضع سدا وتاجن ونار جهنم دش هذا كل سنة قف عن سراتك مرين أو جنة أم أجد بيه جنة وحكى سكية نارتي دشيدنا بريش باسارن يا بوندو يا وضو باسارن قفان وضدا كتلابين جنده uma gudbayo qof kasta oo bani aadam oo ilaahay abuuray iyo jinkaba halkaas maraya wixii ilaahay jannada nasiib uga dhigayna durduray ku dhaafaya oo jannadii ku xaroonay wixii naarta mutayna halkaas ku daadanaya wadadaas ka daadanaya صراط كاسي إلهي مكو كورمي في سورة مريم آية كوبية تضبات هي آية اللبية تضبات وإن منكم آذنوا إذن كمد معها أحد إلا واردها هذه أنقف إذن كمديه وبني آدم أهي هل كاسو كأرور يا ومريم كان على ربك حتما مقضيا هل كائن مخلوق من نبي آدم أي مران ربي كركي أرن كاسو يحكي هاي واجب قوان أو لحكمي وقوان إلهي قال سبحانه وتعالى وكسأله بدباد وتلمام وحيري ثم ننجي الذين اتقوا كذب وحنا بدبادين كو إلهي كعب صدق فأنا ماشى بدبادكم مرينين ونذر الظالمين فيها جثيا كو الظالمين تاها وقالت وهو رئيسي منافقين تنا إيقو كذا اللوبة وكود كودو ده فأنا هلكا كجتغينا بإلهي سبحانه وتعالى ماشى سيكون ضاضنيا والصراط كمريتان كيسا عد كستوي مريسا وحسي ياب لإلهي وقع قرآنك إلى أفر آيات وفي سورة الحديد كتير سورة الصومال وسبح بيرت راهدو أفر آيات كتير بإلهي سياب لأغشيكي حوال اللي هي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نبي محمد وحد مدى وشيكاي وحسوسي ساعة مالنت أي رجع مؤمنين تا يهوينك مؤمناتك أركي دونان ترى أركي دونتوني رجع يدمرك مؤمنين تا أركي دونت يسعى نورهم يقع الصعده نور كودي بين أيديهم هرتوض أو صعده وبأيمانهم مدكتوضنا أو صعده هرتوض النور باسك كبحي مدكتنا النور با كبحي والله هذا ميلاد كتابك laga siinay kitaabka xagga horena waa laga siinay waa looga dhiibay xagga midigtana waa looga dhiibay muuminiinta nuurkaas hore iyo midig uu ka socdo bushraakum al-yawm waxa lagu oranayaa maanta bushaarad leeyahay iyo bogaadin bishaaradiina maanta baraarihiina iyo barwaaqadiina jannaatun tajri min tahtiha al-anhar وحيوان لوغو بشارين إلهي سينيو وحاويان جنوين أي صعونيان درتيدي يقوليه هذا يقيده هذا هوستو ده وبيو خالدين فيها أي كواريان وأليه سبحانه وتعالى ذلك هو الفوز العظيم أرين كاسي والليمان أدوه
marka mu'miniintu ay siraadka marayaan oo leyrkaas iyo iftiinkaas iyo nuurkaas u baxayo munaafiqiintii baa laga sheekay yawma yaqulu almunaafiquun munaafiqiintu maalinay oran doonaan ragga ah iyo walmunaafiqaatu dumarka munaafiqaadka ah liladiina aamanuu kuwii alla rumeeyey ay ku oran doonaan unduruuna nasuga erayga nadar quraanka saddex qaab ugu yimaadaa nadar oo tacaddaa binafsihi eraygaasoo isaga naftiisa ku gudbay ama inuu ku gudbo fii ama inuu ku gudbo ilaa saddexdaas quraanka ugu yimaadaa marka erayga nadarka haddii quraanka ku yimaado isagoo aan ilaa iyo fii ka daba dhicin wuxuu faa'iideeyaa at-tawaqquf wal-intidaar isu taagid shayga la isu taago oo la sugo waa halkan oo kale unduruuna nasuga oo isu kaayataag marka qaarkood waxaa arkaysaa isagoo erayga nadar quraanka erayga fii uu ka daba dhacay xarafka fii ka daba dhacay markaasna wuxuu faa'iideynayaa at-tafakkur wal-i'tibaar waxaan lagu sheegay inaad ka fikirtid oo ku caqli qaadatid awalam yanzuruu fii malakuuti as-samaawaati wal-ard awalam yatafakkaruu walam yactabiruu markaa loo jeeday miyaanay ku fekerin bal caqligooda ka shaqaysay malakuutka samaawaadka arlada waxaa ku sugan mararka qaarkood erayga nadarka quraanka waxaa ka daba dhaca ilaa wujuuhun yawmaidin naadira ilaa rabbiha naadira haddii erayga nadar marka ilaa ay ka daba dhacdana wuxuu faa'iideynayaa almucaayanatu bilabsaar wixii oo isha aad saarto wujuuhun yawmaidin naadira ilaa rabbiha naadira rabbigeedna ay daawanayso arkayso marka halka munaafiqiintii waxay oranayaan intaas waa min baab alfaa'ide munaafiqiintu waxay oranayaan unduruuna nasuga isukaya taaga oo maxaa rabtaan naqtabis aanu ka dhuxul qaadanno oo ka dab qaadanno min nuurikum nuurkii waa meeshu waa madow wax ifaya ma jiraan markaan nuurka idiin baxayaan xogaa idinka qaadanna ifsanne isukaya taaga qiila waxaa loo oranayaa irjicuu waraa'akum xagga dambe u noqda faltamisuu nuuran nuur iyo iftiin iyo ilays xaggaa dambe ka soo eega meeshii maxsharkii laga soo dareeray ilaahay hortii la taagnaa annagu xaggaasaa nuurkii ka soo qaadanay adduunkana waa kala nimi waa shaqaysanay dee dib u noqdo oo nuurkan soo qaata kan annagu noo baxayaa waxba idinkama siin karno dib u noqdoo soo qaata eraygaasi markuu dhaco oo ay dib u jeestaan faduriba waxaa lagu dhuftaa oo la yeelaa baynahum dhexdooda bisuuri gidaar baa qan lagu kala xidhaya waa soo jeesanayaan mise ragga ay la hadlayeen maba arkaan qof ka mida gidaar baa ku xidhan lahu baabun gidaarkaasi albaab buu leeyahay baatinuhu baatinkiisiyo gudaha xaggaa xigta mu'miniinta dhankooda xiga fiihi raxmatu naxariis baa ku sugan ama albaabkaa naxariisu ku sugan tahay labadaba damiirka waa loo celiyahay ama baatinkiisay ku sugan tahay wadaahiruhu dhabarkiisa iyo gidaarkan xagga dibadda xigtana min qibalihi xagga qibalkooda iyaga jihadooda xigta alcadaabu cadaab weyn gidaarka xaggana waa ka janno xaggana waa ka cadaab xaggan waa ka janno xaggana waa ka cadaab gidaarka la dhex dhigo xaaladdu markay ku adkaatay qaylinayaan marka yunaaduunahum munaafiqiintii baa qaylinayoo mu'miniintii u qaylinaya maxay leeyihiin alam nakum macakum war miyaanan annagu idinla jirin sootaanu meel wada deganayn masaajidda ku wada tukan jirnay salaada wada tukan jirnayo soonka wada soomi jirnayo jimcayaasha wada tukan jirnayo magaalada ku wada noolayno xoolaha wada dhaqan jirnayo jaarka ahayno isku muslimiin ahayno waa caynka qaaluu waxay odhanayaan mu'miniintii bala waa sax waa runtii meel waa wada joogi walaakinakum laakiin idinku fatantum anfusakum naftiinii baa fidmayseen dhaqan xumo iyo munaafiqnimo iyo diin nacayb iyo dadka diinta ehelka u ah oo aad nacdaan munaafiqnima caloosha iyo idinkaga jirto inkaar baa idin aasnay watarabastum muslimiinta waxaad la suganayseen la koranayseen dhib iyo masaa'ib iyo inkaara inay ku dhacaan
wartabtum waa shakideen iimaankii baa ka shakideen oo diintii baa ka shakideen oo aakhiraad ka shakideen oo cibaadadii baad ka shakideen waqarratkum alamaaniy waxaa idin dagay yididiilo iyo waxaad ku taamaysaan oo isugu sheekaynaysaan baa idin dagay xataa jaa amru llah ilaa geeridu idiin timid ilaa amarkii ilaahay oo geerida idiin timid waqarrakum billaahi algharuur waxaa ilaahay idinku daga oo idinku khatalay kii dagidda badnaa ee shaydaan ah haddaba falyowma maanta laa yu'khadu minkum laydinka qaadi maayo gaala asli ah kuwa ah iyo kuwii munaafiqiinba ahaa labada qole midna laga qaadi maayo fidyatun madax furasho idinkoo munaafiqiina laydinka qaadi maayo walaa min aladiina kafaruu kuwii gaaloobayna madax furasho laga qaadi maayo ma'waakum nnaaru hoyaatinkiinu iyo meeshaad u hoyanaysaan oo salka dhigaysaan naar weeye hiya mawlaakum iyadaa idinku filan oo idin deeqda iyadaa idin gargaaraysa maxaa maanta idin gargaaraya waa naar ma gargaar bay leedahay dab iyo gubis unbay leedahay hiil kale ma jiro naar baa idin hiil ah iyadaa laydinku gubaya wa bi'sa almasiiru meel lagu aayoodo oo loo ahaado waxaa u baasle oo u xun masiirukum haada meeshiinan aad maanta ku aayooteen baa meel xun idin ah halkaasaa siraadku mari doona waxaa jira xadiid abu daawuud wariyey oo cajab leh xadiidkaas sanad saxiixa abu daawuud ku warinayaa caaisha radiallahu canha baa waxay leedahay caaisha ayaa waxay soo xusuusatay oo soo hadal qaaday oo ka sheekaysay naarta fabakat markaasay oyday rasuulkuna waa la fadhiyaa sal alla alay wasalam faqaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam maa yubkiiki rasuulkaa wuxuu ku yidhi caaisho maxaa kaa oohiyey maxaa la oysa qaalat waxay tidhi dakartu naara rasuulka ilaahayow naar baan xusuustay iyo arrinteeda fabakaytu waan ooye fahal tadkuruuna ahliikum su'aal cajab le nabiga weydiisay calayh salatu wasalaam waxaad tidhi fahal tadkuruuna ma xusuusanaysaan rasuulka ilaahayow ahliikum ehelkiinna yowma alqiyaama haddaad rusushii tihiin ambiyadii ilaahay soo diray haddaad tihiin oo adigu ugu weyn tahay aakhiro xaaskaadii carruurtaadii ma xusuusanaysaa rasuulka ilaahay faqaala rasuulku wuxu uhi sal alla alay wasalam jawaabta bal nabiga fiiri amaa fii alaaati mawaaطina saddex meelood miya falaa yadkuru axadun axada saddex goobood qofna qof xusuusan maayo oo ka mid ah goobaha aakhiro saddex goobood walaa rasuul walaa nebi walaa cid kale qof xusuusanayaa ma jiro cinda almiisaan miisaanka agtiisa marka qofka la miisaamayo xataa yaclama ilaa ka la miisaamayo uu ogaado an yakhifu miisaanuhu miisaankiisu ma fududaanaya am yafqulu mise waa cuslaanaya halkan miisaanka marka la joogo qof waliba isagaa wuxuu le ilaahu i badbaadi cid kale xusuusan maayo wa cinda alkitaabi marka kitaabka laysu dhiibayo xiina yuqaalu marka qofka lagu odhanayo haaumu qra'uu kitaabiya kitaabka loo dhiibo uu odhan doono kitaabkaygii waa kanaaye bal akhriya farxad uu la farxay xataa yaclama ilaa uu ogaado ayna yaqacu kitaabuhu kitaabkiisu meeshuu ku dhacayo afii yamiinihi am fii shimaalihi ma midigtiisaa laga siin doonaa mise bidixdaa laga siin doonaa aanu ogeyn midda am min waraa'i dahri mise dhabarkaa looga dhiibi doonaa meesha saddexaad wa cinda siraati markuu qofku siraadka marayo idaa wudica bayna dahraanay jahannam waddadii siraadka marka sidaa loo fidiyo ee la saaro jahannamo dusheeda dadkiina ay gelayaan oo marayaan qof xusuusanayaa ma jiro xaaladda waa adagta xadiiska abu daawud baa soo saaray darajadiisu tirmidina waa soo saaray sheekh albani saxiix buu ka dhigaya abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu saxaabigaas xadiidkii saxiixi muslim ku yaalla oo athar ku taalla oo muslim ku keenaya 183 ayaa abu saciid wuxuu leeyahay balaganii waxa i soo gaadhay ana aljisra buundada iyo waddada siraadka ee la marayo adaqu min ashacri
حبضة تنتأ وكدو دوبيه وأحد من الصيف سيفتنا وكأفديه فالهذه الصورة يسو وضع ميق دنأ أما حبضة تنأ كدو دوبا هدنا سيفتا كأفضل قفكي مؤمن كإساو حبيه لميسو دردرو دافا يا وناكسنا ككوعا ورميا وكي كلمركا أضمه دون ويمريان لكن محال له مريا بقدر أعمالهم عمل كودو انتو لعجي ضدكو اسكو عمل ماها أو اسكو عبادة ماها أو اسكو دقن ماها أو اسكو عبس ماها أو اسكو دين كو دقن ماها قف من ميل بيوتشوفتا قف وليبا سدو دين تأيي دقن كأي عبادة إي خيار لماذا كوها أي أمريا واتي رسولك حديث إمام البخاري وصوصاري أبي سعيد الخدري حديث كيس النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالجسر وحال كيني دونا وضدي سرات كأيو وضدي بالكيني دونا فيجعل بين ظهري جهنم مكسوا حال ليجي دونا والله ساري دونا جهنم دشيد النبي عليه الصلاة والسلام صحابة ودقيستنين هذا سؤال بين النبي ويديه يا رسول الله وما الجسر جسر هو محي وضدني أتشيغيسو ومحي رسولك إلهي قال مدحضة مزلة ووضو السيبة شئيو سنبر حشله ومين لغو السيبانيا ضدك بدن كودي وكو السيبانيا دين منكي كسيبتانا ضلق مورنا يا جهنم قلي ومين لغو السيبتو لغو سنبر حضر عليه خطاطيف وكلاليب برأيا كيا لضدك صور نفانيا يقوق القلوعو بلسا أوق القلوعاء وحسكة مفلطحة حسكة قدح سيدا أوق القلوعان وأفوي لها شوكة برتسا أسو قلوعان وقدح له قدح ذا سو عقيفاء سيدا أسو قروفا تكون بنجد نجد ميش اللي يرادو جيت كبحة أيه اكتب النبي صلى الله عليه وسلم وجيت كان عداد اللي يراد قدح ليس سماذا أرك هذا يساق وقشو هذا أير دي بنت أدو علي سؤال نصارين والدلاعين ثمشة وقصنس جيت كعداد اللي يراد لرسولكم ماشي وشوقي درتي كتالو وقرني نجدي يجيت كاسا كبحة مرك جيت كعداد قدح دي ساس بر ساسو كلاء أيا وضد هريره هذا الصوران وضد كساو سو قبنيس يقال لها السعدان جيت كاس أيوة اكتهي قدح ديسا سعدان بالله سعدان هو عداد المؤمن عليها كالطرف قفك مؤمن كا إيمانك كامل كيهي وحكم مريا البرقسي بكم مريا وكالبرق ككحجة وحكم مريا سيده هلاع أو كله وعمر كويره وكالريح ككحجة ومن انتقيت صدحات سيده وحكم مريا ضبيش ومركي حف كقول أفتوك كله بكم مريا وكأجاويد الخيل والركاب هو كحجة فردها كوا أو أرد كبدن يا أورت كوا أو ديرية أرد كودو كلا يكون مريان فناج مسلم فمنهم وحاكم ضدك ماشى مريا ناج مدبد بادي ومسلم سمت بحي وناج مخدوش وحاكم إذا مدبد بادي لكن برتو حق حاجتي لحق حاجتي وديقو صوت ضادني وبرتو أنت تركي سجى شيء لكن أنا يسوع رجل إن السوق بطه ويدلاعيسه وكعلنيسه هذا ملكله ودلاعينيسه دلاعسه وليجو صوت ضادني ومكدوس في نار جهنم يومد هدي على إيد مايو مدفوع مكدوس بمعنى مدخول مدفوع مد لغو ريحي أو لغو ريدي نار جهنم كمد حتى يمر آخرهم يسحب سحبا إلى كأودم بيا أمره يسقوا سقيا سقط أو كمره dadka marka badbaadaya waxay ku kala duwan yihiin badbaadadooda camalkooda marka qofkii doonaya inuu si degdeg ah meesha ku mara maanta waad noosha muslimna ilaahay waa kaadhi adduunyadina waa joogtaa mana aadan dhiman waxaad ku jirto waxaad aaminsan tahay waxaad ka shaqaynayso waad isogtahay haddii waxaasi ay yihiin waxaad ku badbaadaysana alxamdulilah haddii waxaasi aanay ahayn waxaad ku badbaadaysana
وروي ما أنت واد نوش جانس بعض يستا عقيدة هذا إيمان كاجي واحد آمن سنتهاي هدي شركيات هي خرافات فانفان هي سحر هي كتاب فر هي قشن كاس علوش هذا كبو حنا مالين بات شلاي دونتا ان شلاي تحبكم تلي حديث صلاة أد كل ذات عبادة كل ذات أفكار لقل نبت قلي هذا إسكور هاي مركب ما أنت الدلال إيمان كاجنا كود دلال وهجاج عقيدة دال عمل كاجنا هجاج ومضى مسلم كأهنا كان بدقش هذا دلاشي إلهي سبحانه وتعالى وإلال سفي عن بات كدافع دين تسفي عن غدقة هكهر إيمان إلهي الرسول كيس دين تهكهر إيمان ضدك الدين تأهل القواه علادين وهكهر إيمان حذيفة بن اليمان حديث في صحيح مسلم واسمه حديث عجب له ورسولك التلمامة يقيت الله مري ترسل الأمانة والرحم وحل سود دين دونا والله صوت ديري دونا أمانة دي رحمكي ذلك كالحي هي أمانة دي مقال بلغة صودي دونا فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا وحي استاقي دونان صراط كالبدي صدعات مدكتي بدحدا فيمر أولكم كالبرق قف كوين إذن كهر ريا وحيكم مريد دونان سيدا هلاع وكلا مركز علي حذيفة نبي قام وحن كؤلي أباها يهو يدي بانكو غفرنا يا رسولك إلهي أي شيء كمر البرق قف بني آدم كيسيدا هلاع وكلا أمري كرا واكي اللي هلاع موقت قف كستأرض بدن إساقا كدك بدن مربو وع أرانيا مقف بها سيدا أمري كرا ميش هالمر سيدا هلاع وكلا قال ألم تروا ورمييدنان أرك إلى البرق هلاع كيف يمر سدو إلها أمره ويرجع وصون نقضه في طرفة عين البرقس بده وعوير هذا وع وكل بيدنان أرك وساس وكل ثم كمر الريح دبيشة صعد عده دق بدن سعود كده كله كمر دونا ثم كمر الطير شمبرها شمبر كون ديرية سعود كيسو كله كمر دونا وشد الرجال رجع كوا ود ديرية هو أرد كبدن أرد كده كله كمر يا كوا كحجة تجري بهم أعمالهم أعماشوا ذا الله صعونيسه والنبيكم قائم على الصراط رسولك يا النبي عليه الصلاة والسلام صراط كساء تاجين يقول وحليه ربي سلم إله بدباد صمت به نبت قلي حتى تعجز أعمال العباد إلى أي قابسه وعاجسته أعماشي أضومه السنين وبمعنى أي هران مركز ضمبه ضد عمل فالمسلمين عمل فالكودي أدوليتي عمل فالكودي إيو عبادة دودي إيو عقيدة دودي أدوليتي بهاردون حتى يجيء الرجل إلى أوجماد منك الله كانوا فلا يستطيع الصير صعد آن أود إلا زحفا إنه ضبط كؤسقه وقرقور تمو يعني وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة وضد الصراط كدعيه دي هريره ده وحاصرا درسا أو قلقلعه آدمو دسيدا عداد قدح دي دو كلا معلقة للصري مأمورة لفصحي والله إدمان فصح للسيي بأخذ من أمرت به إن يقبط عد الله إدمه فمخدوش ناج تدكي وحاكم إذا مثل حق توبت باري ومكدوس في النار من نار تلغطورة نحن نقول كرا ماشة هذا أديكو مريها إيو شركة وباترول ليه باترول هذه مريها جارات وشركة وجار باترول أو ميل ضبعة أتسمر كون سمر كي بدي أقول لي ميسي وضبط كضفي ماي كل في ماي وأساسه كله باترول كي وحلم إذا ذنوب تري معاصدة هي حمانت وحاضر وتهدد سمرتي برهن وقوصه يا عيان سبب باترول كضبك وسوا هذا وكان قوصه يا عيان وقبصني هذا لكن واحد ذنوب لهين برتودي يجو تاجنا عند دقائق بتحف قدافة سهل حاجة كلا بتشوفها مركا كوي داله نوقف قدافة الله ينقدر وحياها مركا مهم كأ وحكم إذا سرات كاس يسير لوجود بلها
qofku inuu ku talagalo. waxay noo haray jannada iyo naartii haddaan siraadka intaa kaga tagno. jannada iyo naarta hadda ka hor waynu ka hadalnay laba fadhi ayaynu midna naarta kaga hadalnay midna jannada kaga hadalnay. waa in iska yara dul maraynaa un caawa maadaama mawaadiicdan hore ay la socoto. jannadu waa daar iyo guryo ilaahay ugu talagalay ciddii isaga adeecda ee ka cabsata. meeshay ku taallana samaawaadkaas samada 7 iyo halkaasay ku taallaa samada cinda sidrati lmuntaha geedkaa gobka ah ee makaanu intihaaga oo aan la dhaafaynin geedkaas agtiisa ayaa jannatulma'waadu ka bilaabataa. waxaa ku sugan jannada gudaheeda makhluuq ilaahay abuuray waxaan weligii ishiisa ku arag dhegtiisana ku maqal qalbigiisana ku soo dhici. ilaahay markuu ka sheekeynayay fi suurati najmi jannada iyo meeshay ku taallo aayadda 13 ilaa 15 walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa nebigu wuxuu arkay jibriil nazlatan ukhraa mar kaluu arkay salawaatullaahi wasalaamu calayh. marna samadu ku arkay marna wuxuu ku arkay dhulka isagoo jooga nebiga calayhi salaatu wasalaam cinda sidrati lmuntaha meesha lagu ekaanayo geedka ku yaalla agtiisu ku arkay. sidratlmuntaha waxaa loogu bixiyey makhluuqa wixii halkan ka taga arlada halkaa ma dhaafaya camalka ay wadaan iyo iyagu kor wixii ka yimaadana halkaas ma soo gudbayaan warkaasaa lagu kala qaadanaya. laakiin nebigu waa dhaafay isagu calayhi salaatu wasalaam jibriilna wuu sugayey halkaa ma dhaafi karo yidhi habeenkii la guuraysiiyey kor buu uga baxay. cindahaa jannatulma'wa geedkaas agtiisa waxaa ku yaalla jannadaas jannatulma'wa la yidhaahdo ayaa ku taalla. marka waxaa muhim ah qofka muslimkaa inuu caqiidaysto jannadu maanta way abuuran tahay wayna jirtaa wayna joogtaa. ma aha jannadu aakhire marka la tago sida dadka qaarkii caqiidaysan yahay in markaa la abuurayo oo la diyaarinayo la goglayo naartana markaa la shidayo ma aha laakiin iminkay diyaar yihiin. ilaahay soo qur-aanka ka warramaya meelo badan fi suurati ali cimraan aayadda 133 wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum war waxaad u dheeraysaan oo u degdegtaan dembi dhaaf rabbigiin xaggii ka ahaaday. wa jannatin carduha asamaawaatu waalard iyo janno ballaceedu 7 samaawaat iyo 7 dhul oo la isku furay uu la egyahay yaa loo diyaariyey uciddat lilmuttaqiin waxaa loo diyaariyey dadka ilaahay ka cabsaday alla ka yaabka ah. mar kale fi suurati alxadiid aayadda 22 saabiquu ilaa maqfirati min rabbikum u dheereeyo u beretama dembi dhaaf alle xaggii ka ahaa. wa jannatin carduhaa ka cardi asamaa'i waalard iyo janno ballaceedu iyo ballarhkeedu la egyahay samada iyo arladoo kale yaa loo diyaariyey uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih waxaa loo diyaariyey dadka allana iyo xaqa rumeeyey rasuulkana rumeeyey calayhi salaatu wasalaam. في صحيح مسلم هي بخاري وحاكو يالا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مكور رسولك وحيري اطلعت في الجنة وحان دال عضي والله تصيد جنة قدهيدا فرأيت وحان كو أركي أكثر أهلها الفقراء ضدك أقبضا كنا لي وضدك فقراء إسكما قدام درقانك المصاريف توني استقرنا والآن حول بدن هيسنين. وطلعت في النار نار تندال عضي فرأيت أكثر أهلها النساء ذاتك إذا أغفرها بدن اللي تصي وضمرك بالنبي عليه الصلاة والسلام ضمرك مركا أصلك برقوة كبديه. ثانيا مدى اللبات هدنا نبي سؤاشا مروركة شيديي كبربا سؤال مدي صوت لي رسولك إلهي محانو كمو تيساني إنانو نقوم ضدك النار تأغو بضان نبي قال الله وصف وضبو الشيء عليه الصلاة والسلام إن كنا تكثرنا اللعنة لعنة داد بضيسانو أفحما دا إذن كبضان عيدا هباركا نعضشا وحسكدركا بينتا بآد إذن كبضان وتكفرنا العشيرة رقا إذن قبيع ضد حدين واتكأبالك النعدان لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط وكما قالت هدي ولقاء السما فشو ولقاء دقاليسو ولقاء
xabiibnimo ah u dhaqaalayso xaaskaadii maalin hadday wax kugu qoonsato weligayba khayr kaama arag bay ku dhahaysa weligayba wax khayr oo wanaaga kaama arag aaway wixii abaal ahaa aaway gobonnimadii dhaqankii iyo dhaqaalihii wacna waxaasoo dhan ma xusuusanayso marka hadday ku jeclaadaan dumarkuna waa 100% meel dhexe iskuma taagayso hadday ku nacdana waa eber hoos bay u degaysaa hal mar laakiin ninku isagu meel dhexe u istaagi karaa 30 50 60 xawaarahoodu waa faas hadday kugu kacdana waa khatar marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay arrintaas jannada yaa gelaya qof aan mu'min ahayn jannada ma gelaya xadiidka imaamu tirmidhi ee saxiixa ah cali bin abi taalib warinayo nabiga sallallahu alayhi wasallam laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo ilaa nafsun mu'mina naf mu'mina naf aan jannada geli mayso nabiga sallallahu alayhi wasallam naf mu'minada de ilaahay taqaan qofkii jannada gala ma ka soo baxaya oo dib ma uga soo baxaya jawaabtu waa maya qofkii jannada gala ma dhimanaya jawaabtu waa maya dibna loogama soo baxo lamana dhinto geerin lagama yaqaan oo gabow lagama yaqaan oo xanuun iyo gaajo lagama yaqaan jannada waa meel lagu geeriyoonay waa meel lagu gaboobay waa meel lagu gaajoonay waa meel lagu xanuunsanay afarta cudur ee adduunka yaala jannada ma yaala wax kasto nimco adduunka lagu siiyo afarta cudur baa ku haysta waa dhiman oo ama hadaad caafimaad qabto waa jiran ama hadaad dhalinyaro in qurux badan oo xoog leeyahay waad gaboobaysaa ama waad geeriyoon bad waa tagaysaa ama waa boqonaysaa ilaahay quraanka soo ka warramay fi suurati hud aayada 108 wa amma alladheena su'idu kuwii la liibaanay soomaha ونصيبك يا عيان كهلي ففي الجنة خالدين فيها جنة قدهد بكواريا ما دامت السماوات والأرض انت السماء يا أرلد تاغين معنى ولي قد بلوت شيئا إلا ما شاء ربك ربك وحي ودونا مش هذا إله عندنا محري كرتو عطاء أعطوا والسيي عطاء وحي دون ينباسين بالسيي غير مجدود أي غير منقطوع أن قوين بالسيي وحلا وحي ربين ماشي كويستا وحبا دمادي جنada laga ma yaqaan waxba go'ay laga ma yaqaan waxba la waayay laga ma yaqaan waxba lumay laga ma yaqaan waxba soo raagay laga ma yaqaan waxba wali la bislayn laga ma yaqaan waxba yar laga ma yaqaan jannada wax kasta jannadu waa tamaam waa fahanti soma wax kasta waa buuxa way ku aftaqaan adigu hadii qalbigaaga ku soo dhaco wuxuu kamida aad jeclaysato u baahato markiiba wixii ordaya ku imanay hada qalbigaaga ku soo dhacdo afka kama aad hadlin markiiba waa ku imanay jannada ilaahay ehelkeeda hay naga dhig suratu ali imran ilaahay marka loo ka sheekay lil ladina taqaw inda rabbihim jannat ilaahay kuwa ka cabsaday oo alla ka yaabka ah waxay leeyihiin oo u sugnaaday rabbigood agti jannooyin tajri min tahtiha al-anhar وبيده بيرهد يقوليه هوسده أيوة بيسعونيا خالدين فيها أي كواريا وأزواج حاسس بيليهن كنا ذا قديه مطهرة للنذيفيين حيابها الدمر كأدوك كلها حيد كأي نفاس كأي حاكذا أي عنده فضائي دوف كأي ديدت كأي وكان نظيف حاجة أخلاق يدقن كنا وحا إنسانك لقى عوضه وكان نظيف ورضوان من الله يرى لأهانشو اللي حقيقها سدح بيشك مركا آيات وهذا فيه سدح بيليه قضب ككواد جنات بيليه قضب كاللبادنا أزواج حاسس بيليه ورسولك يري صلى الله عليه وسلم قروح دودا وحادوش الله نينك أهل الجنة حاسس كيسا قروح دا أي قروح سنتاي روح هذا دي بدو كاركيا هيلب كان معها لفت حتى معها لفت روح هذا halkaas uu ka arkaa nabiga cali sallallahu alayhi wasallam qofta caynka oo qurxeed wax la sheegi kara ma wax ilaahay isagu abuuro diyaariyay asallallahu min ahliha qodobka saddexaadna ridwaan min allah halahan shay ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay raali ka noqday beelay wallahu basir bil ibad xalugu gabagabay aayada hada la aad kulul ogaada ilaahay adoomihiisa waa arka ilaahay waa ku jeeda subhanahu wa ta'ala مركل في سورة النساء
آية 13 ومن يطع الله ورسوله إلهي قفك أضيع وركي سقاطة وأن دبا مرين كهر إيمان رسولك سنة أضيعه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار إلهي يقول لنا يا جنوين نرتدي قريه هذه وبياء سعود حصعنا خالدين فيها أي كوارا ينبدين وذلك الفوز العظيم أرنكاسي والإيمان وين إله النار كابت بادي وشنانا كسي في صحيح البخاري وحاكوسه من حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة أهل الجنة وحلقوا أرنا يا أهل الجنة والنبي يقول تلمامي مركا أهل الجنة جنة قلا أهل النار كنا أي نار تقلا هو أرنتو هالكا كنا ماتوا أي وحا لكينا يا ون موقال ون بالكينا قيس له ون كاس مركا لكينو ون كاسي وغيريدي يا دمشدي أو لغا سو دغاي موقال ون با لغا سو دغاي كدبنا جنة يا نار تدخدودا باسا لو سو تاغاي أهل الجنة مركا لو يري يا أهل الجنة أهل الجنة فيشرئبون مركاسي مدح سو تاغاي ميشا لوغا يري مركاسي waxay arkayaan deewankii oo meesha taagay خلود لا موت ووارثان بالذين جنة aad ku waartaan geeri ma jirto dambe oo aad dhimanaysaa يا أهل النار أهل النار ولو دواقي ماذا سو تاغاي idinku naarta waa ku waaraysan geeridii wataa maanta hortooda lagu gowracayaa marka geeridii dadka dili jirtay goorma la dilayaa aakhira lagu dili doona iyada ma hadii iyadiiba la dilay geeriyo ma jirto waa qancin meesha u dimaysa la qancinaya halkaas lagu gowracayaa geeridii lafteedii oo ku dhimanaysa ilaahay taasoo tilmaamay rasuulkiisa kaleey salaatu wasalaam jannada laga sheekaynayo waxa yaala تعب يشقي باهنته ووح إلهي ويعد قرن سرانيك وحلا مشيء القرآن كي يصنه وتصالئه شيء أفهمه والله اللي نكسر دوينا يمعناها فهمك مثلا في سورة السجدة أما صومالد الجرس تراضه إلهي وحليه فلا تعلم نفس نفي مؤغا ما أخفي الله وحى أهل جنها لو قريي إلهي جنة ودياري ومن قرة أعين الوحي كقبوسته وقلبه حكودجا جزاء بما كانوا يعملون جوزوا جزاء ولا أبالي أبا المرين وحي أي شقيستين سببتين في سورة الرعد آية الشنية صدر مثل الجنة التي وعد المتقون جنة إلهي ألدتك الله كعب صدا وبلن قادي مثل كيدي تسالهيدو وحوي جنة تجري من تحتها الأنهار وحقريه يدئي نرتيده وسط صعونية وبيو ملب يعانو يهدي الإيد ما يخمر عن لغو سخرامل يبيو وكلها دائم عنتدد والدائم وظلها يهركين هل كجيت جنة كيالا فردها فرسك أقول ديري يا النبي عليه الصلاة والسلام حدي قف فرد فول كي يقان أو فوله شنبقل أو سنضات هدي فرسك العيرية ودقيقة قرآن لتاجن هل مرة كهوس بحماية جيت كهوس كيس شنبقل أو سنضات هدي العيرية هل مرنا جيت كهركيسة كما هو صبحي كرم النبي عليه الصلاة والسلام وهل جيت قرأ وشنة كويا ماشي ساقف كمؤمن كماله على شكوها أو شقيستا عنتدد ودائم وحكى لك أي ما حركيدنا ودائم تلك عقبى الذين اتقوا هل كان لغش كينيو ددك إلهي كعب صدق عرف دنبيت كودوي هل كاس إلهي الدياري قوشودو هل كاس يتعالى وعقبى الكافرين النار قالوا عربتيدو النار ويبقى لي سبحانه وتعالى لما قولوا الله يسقط دور صدق معه جنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني طبعا شرنشرة وكلا سر بقول شرنشرة وكلا سرية إني تهاي بقول شرنشرة لبادي شرنشرة وحي سوتشيران لبادي سلام با سماد ممكن أنت سوتشيران وبقول سلامات لباس سلام وكستنا وحي سوتشيران كما بين السماء والأرض ملك يعركوا أنت سوتشيران وكلا
جنوينك وحا أغص الرئيسة جنة الفردوس الأعلى تاسع أغص الرئيسة والنبي قرنش عليه الصلاة والسلام إلهي هداد وحويدي سنيسان جنة الفردوس ويدي سبحانه وتعالى جنة الفردوس وجنوينك أغص الرئيسة عرشك كسي كورية عرشك إلهي بكسي كورية جنة الفردوس أي كسو برقانيان بيهاس أهل الجنة إلهي أسيني نعمة حديث الإمام البخاري أبو هريرة أولنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من آمن بالله إلهي قفك رمية إيمان صحة وبرسوله رسول كيس رمية وأقام الصلاة صلاة أوغة وصام رمضان تصوم كان حقا على الله الذي سوحى حق يواجب يسوي استساري أن يدخله الجنة جنة إلو جاهد في سبيل الله جهاد وضد إلهي جهاد أو جلس في أرضه التي ولد فيها أما هفر يستوها يسكتشوغو نلكي وكل شيء بكاسا صحابة الوحي هذا أنت أبوغين يا رسول الله أفلا نبشر الناس ضدك ميانا أرنت وبشارين قال وحينا في الجنة 100 درجة جنة وبغل سلام أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ضدك إلهي جدك سكوها الجمي كوها الجمي يؤل الدياري ما بين الدرجتين لبس لا أنت ولا حيسا كما بين السماء والأرض وأنت أرض لك سجران فإذا سألتم الله إلهي هداد ويدي سنيسان شنو فاسألوه الفردوس فردوس ويديستا فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن جنة يدا أكر رئيسا يدا أنا محان كل حد حاتك كشرتا ودوعي كي من النعمة أبا الله عنيا اللي عبيا عرشك إلهينا وكسر جنة سجد الباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري مسلم سهل بن سعد رضي الله عنه وحير في الجنة 8 أبواب جنة سجد الباب كسغن وأيلان فيها باب يسمى الريان وحكسغن الباب لا يراد الباب كدرجة يعكنانتا لا يدخله إلا الصائمون ذاتك الدنيا سومي تشيري إذا أنا هين كجلي ما ينبغي النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيمرنا يا بيقبوا بالغ سينا يا بيها سعب يانو تبوها الرادي ما يوم النبي يقول لها صلوات الله وسلامه عليه هذين الجنة أنت كجبحنا نارت بين هو جبيني نارتو ودار وإلهي يقول تلقى لي عقابي عذاب أبدي قال هذا مشركين تأي منافقين تأي إنه كعذاب الله سبحانه وتعالى يضدك مسلمين تأ عصادة إنه كعذاب الله ينقبل بالي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي في سورة آل عمران أيضا بقول قوم يصدن واتقوا النار وروي النار اسكيلالي التي أعدت للكافرين إلهي النار قال هذا ودياري اسكيلالي إذن كيديكم تلقين بقال الله ضد قال لي هذا الله تلقى إيا قال له دياري إذنكو إلهي الدين تيسا انتا دردرتان نار تهجلين بل هذا قد يقول لي يقول لي قبوا يدقون قروح لبضن وناكسن قل أو سيحو حقا يا النار أضفر بحسنا يسقوا ودينتي يا إلهي يا رسولك يا شريعتي انتا دردرتو تشيلو أدمرت مدح هنا ضد شاهد والنوع واللي أمرك عد اللي دياري وقت مركله في سورة الفرقان أيضا كوبي طبعا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وحنو ديارنا عدة ساعات قيامة بينسة نار السعيرة بانو ديارنا اللي ولي سبحانه وتعالى مركله الوحوري نارتو إن الدركات تهيبو الشيء وسيدا تشندو تشرنشروين كلا سريوتاي يدو خانن كلا هوسيا إلى نارتو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقين تو خنك وجوه سي النار إليه ولن تجد لهم نصيرا عيده لسنة هل ميسبوا عليه سبحانه وتعالى وما شيء قالوا كوه يعني منافقين تو ينتي الله دون عصاته في سورة النساء أيضا بقول كنتم إلى بقول كنتم يكون إن الذين يكفرون بالله ورسله كو إلهي رسولك سكقالوا بي ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله دون يا الله يا رسولك رسوشيسا إني كلا الصوعان وأن من كان يهود ديدنوا عيسى نبي محمدنا إنكري
موسى يوحي إليه من ورمي سنة إليه يوحي ودده ضراعة ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أرنا يبرنا ورمين برنا وكفرنا دينته ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا دون يماشى إن وضد حكس ميستان أولئك هم الكافرون حقا هو سوى قال النبأ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قال ذي محان أوديارني عذاب دلية وشرفتك قال الله سبحانه وتعالى قفك النار تقاله وقال ذا كمل منافقين تا نفاق وين هي كمل كما صبحيه كما ندمان يقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في سورة البقرة آية بقول كوي لحنا إلى بقول كنتني لبي لحنا كوا قالوا بي الجيريون يقول قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كوا دشوا ذوحاء إلهي نعرشي سي الملائكة يا ضدك كل يوم أيام نعندوا كل عيسى خالدين فيها نار تاسي كوارين لا يخفف عنهم العذاب عذاب كلا غفض يدين ماي مرقرة لك كلا قول ماي ولا هم ينظرون كل سكتنا معه في سورة هود فأما الذين شقوا كوي مياه أيان دريستي النور درهدا أيان درهدا كل عضي ففي النار قده بكواسي قال يعني كسبين لهم فيها زفير وشهيق نار تقده هذا وحي كليهم شبات يهنراك الجباد يعني وهنراك يعني هي هذا إليهم خالدين فيها والكواريا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب يعني وحاول لو قلت هذا ولقد وكتر يانوي تمشي هذا الله إن ربك فعال لما يريد ربك وحي ربوا أحد سمين بدناه سميوي الله سبحانه وتعالى مركله وحوت المامين نار تنعد وطلقل وعد الله المنافقين والمنافقات كوا أورك قال هذا منافقين ترجع يدمرك إلهي وحي الدياري والكفار قال هذا نار جهنم نار تير خالدين فيها والكواريا هي حسبهم يدا كفلا وكافنيسا ولعنهم الله ألا ونعضلي ولهم عذاب مقيم مركل في سورة الأحزاب لحنا يافر إلى لحنا يشن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلهي قال هذا ونعضلي سعيرنا وأدياري خالدين فيها أبدا وين كواريا ولقوا لا يجدون وليا ولا نصيرا من هي يرمد حكتوه يمد قرقاره لمن هي مايا في سورة التغابن آية طبنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كوا قالوا بي آيات كيجا ككفري آيات كيجا بيني والذين كفروا كوا قالوا حق بيني وكذبوا بآياتنا آيات كيجا كوا آيات كيجا ككفري وكذبوا بآياتنا والذين كفروا كوا قالوا بي وكذبوا بآياتنا آيات كيجا بيني أولئك أصحاب النار خالدين فيها نار أصحاب تدوي وين كواريا وبئس المصير من الله هذا ما شاء سأقول لذاته النبي في صحيح البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الله أهل الجنة الجنة إلهي أهل الجنة الجنة قلينيا ويدخل أهل النار النار أهل النار كان النار تقلينيا ثم يقول مؤذن بينهم من أغيسين يا بعد حدود استاغي فيقول يا أهل الجنة لا موت وحديث كانوا شيئين أهل الجنة وغيري مجرتو وارد كوارا ويا أهل النار لا موت أهل النار وغيري مجرتو كل خالد فيما هو فيه مدول موت كسوغن يهيب كوارا تدبأ البابنا وإلى سيد قرآنكم الشيئين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصود تدبأ الباب إلى هاي الباب والبنا قيب لها يقول قلبها كهو ينيسا نارتن iyo dabkan adduunka aynu isticmaalo wax lagu bislaysto ee adduunka lagu isticmaalo nabigu wuxuu ka waramay kaleey salaatu wasalaam in naarta jahannam asalkiisi laga keenay laakiin sidan ma ahayn waxa la soo qaboojiyay 7 jeer baa la soo qaboojiyay 7 jeer markii la soo qaboojiyay dhuxul yar oo 7 jeer la soo qaboojiyay naarukum juz'un min 70 juz'an min naari jahannam dabkan aad isticmaalaysan dunida وتضباطا قيبات ونارتي جهنم لو قيبي قيب يرو كميت markaas saxaabadu waxay yiraahdeen in kaanat la kaafiya rasuulka ilaahay iyada kaligeed baba hadii cid la gubayo lagu cadaabayo iyadaaba ku filan ba oo 69kii kale hadaan lagu darin tan kaliyaaba ku filan ilaahay rasuulka ilaahay markaas rasuulku wuxuu yiri fudilat alayhinna
ب99 جزءا. النبي صلى الله عليه وسلم وحا لغو داري دونا oo lagu dheeraad 99 qaybood kulluhunna mithlu harriha. boqol baa laga dhigayaa marka boqol baa laga dhigay kulligeedna sida iyadu wax u gubayso kale ay wax u gubayso. waxa aynu ka sheekaynay geeridii iyo qabrigii aynu ka soo sheekaynay iyo soo saaritaankii iyo shafaacadii iyo siraadkii iyo jannadii iyo naartii waa safarka dheer ee sugaya ee aakhiro iyo hawlaha ka dhacay. waxaan u baahanay marka inaynu walaalayaal u diyaar garowno oo adduunyadu aynan ku habsaamin oo aynan wax badan ku ilaawin. adduunyadu laguma oran nasiibkaaga ha ka qaado, nasiibkaaga ka qaado, laakiin gacanta midig diintaada ku qabso ee aakhiradaada, gacanta midigna adduunyada ku qabso. waqti aakhiru zaman la joogaa u diyaar garowgii aakhiro ku dhaqankii diinta, cabsidii ilaahay, dhowrsanaantii ay aad u yartahay. qofku afkiisa wuxuu ka rabo ku hadlaya, wuxuu rabo qoraya, waa xor, cidba ka cabsan maayo. allah inuu arko oo maqlo oo og yahay oo u jeedo waa ilowsan yahay, waa ilowsan yahay. marka waqti adag baynu ku jirnaa. ilaahay aynu ka cabsano subxaanahu wa tacaala. qof walba hoos isu eeg naftaada saad u badbaadi lahayd oo ilaahay agti u badbaadi lahayd falankeeda gal. nin walba waxaad ka shaqaynaysaa waad sogta, waxaad ka fakaraysaa ogta, waxa calooshaada ku jira ogta, waxaad ku hadashaa ogta, waxaad ku sheekaysaa ogta, waxaad qortaa ogta. adaa isoo waxaan caawa hadaad ku dhimato ma ku badbaadaysaa mise kuma badbaadaysid adiga og. allahayna badbaadiyo, allahayna badbaadiyo, allahayna badbaadiyo. isma ilaalin karnay, allahayna ilaaliyo, allahayna ilaaliyo, allahayna hanuuniyo, allahayna toosiyo, allahayna hagaajiyo, allahayna xafido. خاتمتنا الله وناجي عمل كنا عبادتنا الله وناجي. إلهي وحن كبرنا كوي مسلمكم أفكود يا أجن كود أوركود كنا بذكر الله ينقدم عباداتك يا عملك صالحة الله ينوفضين. عبتنا الدنيا آخر الله أستر. خاتمتنا الله هجاجي والدكين نجوه الرجال أنت إسلامي بقى الله ونحرس إلهي قبرك هو نور إنك أنا خير الله ينقدم الجيل أدونك دوشيس الله ينقوم عيبه أراد هو استير إلهي ينقوم عذاب. كلمة ودن بس أفكرنا كسر بحر توحيدك الله كدي خير الدنيا خير آخر الله ينوافج وحول بخير النبي إلهي ودي استبين الله ودي سنين وحكستو الشر إلهي النبي كما كان قلبين إلهي كما كان قلينا. اللهم صل على محمد.